waxay tilmaamayaan hogaamiyuhu waxyaabaha ugu weyn aanu ka rabnaa bay leeyihiin waa inuu noqdo qof kalsooni lagu qabo waxay leeyihiin kalsoonida maxaa sameeya hogaamiye lagu kalsoon yahay oo dadku raciyadiisu ka dambayso inuu noqdo maxaa sababa waxay dhahaan laba shay haddii laga helo kalsoonidaasi meeshay taallaa waa maxay labada shay waa truth telling bay yidhaahdeen inuu run sheegayo qof run sheega inuu yahay oo aan been lagu baran hogaamiyuhu hadduu maalin walba intuu khudbadayo dadka been u sheego oo shalay kii uu sheegay haddana berrito ay been kala noqoto oo haddana maalinta dambe uu khudbadayo oo been kala sheego waxay leeyihiin marada ka dhacaysa wuu qaawismaya mara ka dhicistu waxa weeyaan dee kalsoonidaadii baanu helaynin therefore he can lead you kuma hogaamin karo muxuu noqonayaa haddaanu ku hogaamin karaynin wuxuu noqonayaa John Maxwell ninkii la odhan jireen hore idinku soo tilmaamay baa wuxuu leeyahay book la yidhaahdo the 5 levels of the leadership shanta hierarchy leadership uu leeyahay shampi wax la yidhaahdo isticmaala wuxuu leeyahay heerka koowaad waxa la yidhaahdaa position buu yidhi positionku waa maxay right to lead isagu inuu ku hogaamiyo xaq buu u helay yani kursiga dee maamulku helo wuu fadhiyaa adiguna waa maxay waxaad u daba socotaa you have to buu leeyahay wax kaloo aad qabataanad haynin waad ku qasbantay natiijada ka dhalanaysa maxay tahay buu leeyahay waxa ka dhalanaysa buu yidhi the minimum energy iyo the minimum effort inaad bixiso inta ugu yare taxillatul qasamuna shaqaalaha iyo wasiirada iyo dawladda iyo dadka inta ugu yare uun aanay ku dambaabaynin bay la imanayaan idan waxa koowaad laga rabaa bay leeyihiin qaa'idku waa kalsooni waa credibility waa mistaaqiya mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihiin inuu qof run sheegaya yahay iyo trustworthy qof آمنة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسالة ذاك عليه أنت أنا الرسول كان نقولين محي عربي وتقاني الصادق الأمين that means credibility ببلشدي سكون حلها مستاقية دي بولها الله بدنين بحث جاي كون يشنت بقول مدير سوي دي وحويان قفك هدي للربه إنه leader نقضه شيء كواد أنه كربنا بيلين وcredibility ومستاقية مستاقية ده سوى حيكون إيمان سابيلين إنه قفرون شيء جاي هاي نبينا عليه الصلاة والسلام حين ليه هاي صدح آخره إلهي ما لنت قيامها ما طاهر ياله وما إيغه وعذاب كل البيلي صدح عقابات بالله شيء ما لنت قيامه إنه صدح جروب ولا لا يزكيهم إلهي ما طهره ولا ينظر إليهم ما إيغو إلنا حريسكم ما إيغو عذاب كلنا وإليهم صدح ذا تنوى محي وصدح وحو مدوى البوحي لقفي لي وحانهين لوحيه مدي وحو النبي يقول والشيخ الزان وذي وينو الزنا السنية نوين حلاش أبو طاقل آيه هدو الزنا وسيقعه دوا مالدران إذن شيخ هو يعني قف سن وينه قف داء وهدنا الزنا السنية وعبدون كاللباد وحو النبي وكت المامي وملك كذاب بقرة من مضح بين على ترستالين كيبا لقلاي نين مضحة وبين على نمضتك أي كبرتان ينوح لي يسدح ذا قيامها بلد كل عيسو كميديها كصدحاتنا وحو النبي يقول هو عائل مستكبر وحما يستهدنا كبري بن آدم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى بإلهيه بن آدم بو حقوقه markuu ama sulta helo ama lacag helo ama markuu tabaqada sare ku biiro ayaa laga yaabaa inuu kibro laakiin mid aan waxba haysan haduu kibirka bilaabo wax looga fadhiyay maaha